What's your name? أيوب أحمد حسن oo ah wiil 12 jir Soomaali ku dhashay dalkani Britain ayaa waxa uu sameeyay ab casri ah oo kuu sahlaya inuu si fudud kuugu turjumo luqadda Ingiriiska afka Soomaaliga qaab qoraal ahaan ah. Ayuub Axmed Xasan ayaa iska lahaa samaynta abkan casriga ah waxaana ay ku timid kadib markii uu arkay baahida ay dadka Soomaalida u qabaan adeeg caynkan oo kala ah. Ayuub Axmed Xasan ayaa waxaan kula kulmay magaalada London waxaana weydiiyay sababta ku kaliftay abkan inuu sameeyo wuxuuna yiri Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for having me on Cable TV. My name is Ayub and I'm 12 years old and I've created an app that translates English into Somali. I first got the idea for this app from my teacher Ahmed Dini to create an app that helps the Somali community around the world. The purpose of this app is to translate the English into Somali and help the Somali community. If you want to try this app for yourself, if you're on Android, you would search up Teach Somali on Play Store. And if you're on Apple, you would search up Turjum. To use the app, you would press the microphone icon at the bottom of the screen. And when it turns green, you will start talking. And when it turns back to black, you will stop. Thank you so much. Thank you. haddaba haddii aad doonayso inaad abkan isticmaasho ama aad soo degsato markii aad joogto App Store-ka waxaad ku qori kartaa turjumaad sida shaashada idinkaga muuqato haddii aad Play Store-ka ama Android-ga isticmaalaysana waxaad ku qori doontaa Somali Teach abkan ayaa dad badan oo isticmaala oo aan anigu kamid ah aan ka faa'iidnay kaasina wuxuu ahaa Ayuub Axmed Xasan oo ii waramayay aniga oo Cabdi Fataax Ali Shirwaac